warbaahinta ayaa dib u soo cusboonaysiisay muuqaal hore oo laga duubay ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni inta aanay noqon ra'iisul wasaaraha Talyaaniga. hadalkan ayay si kulul ugu weerartay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo siyaasadda Faransiiska ee Afrika. Giorgia Meloni maadaama hadda ay tahay ra'iisul wasaaraha Talyaaniga, hadalkeeda ayaa aad u xanuujiyay dowladda Faransiiska iyadoo soo bandhigtay xaqiiqooyin jira, laakiinse aan weli laga maqlin afka mas'uul reer Yuruba oo xilkan oo kala haya. hadalkeeda ayaa mar kale xiisad ka dhex abuuray dalalka Faransiiska iyo Talyaaniga, iyadoo sheegtay mar kale in aanay marnaba ka laaban doonin hadalkeedii hore, welina ay ku taagan tahay mowqifkeedii hore. hadalka xiisadda dhaliyay ee ay jeedisay ra'iisul wasaare Giorgia Meloni waxa uu ahaa sidan: Emmanuel Macron waxa uu nagu sifeeyey aniga iyo xisbigayga doqomiin, qaswadayaal iyo inaan nahay kuwo qayru mas'uuliyiin ah. kadibna saxaafadda Talyaanigu waxay bilowday in ay hadalkiisa wax iska weydiiso ay falanqayn ku samayso. waan maqlay Macron wixii uu naga sheegay. ceebi dushaada ha ahaato Emmanuel Macron, qayrul mas'uul waxa ah kuwii duqeeyay Liibiya, sababtoo ah Faransiisku waxay ka walaacsanaayeen in Talyaanigu uu xiriir dhinaca tamarta ah la lahaa hogaamiye Muammar al-Qaddafi, waxayna Faransiisku sababeen in Talyaanigu uu wajaho tahriib fowdo ah oo ilaa iyo hadda socota. Emmanuel Macron doqomadu waa Faransiiska muhaajiriinta u diida inay ka soo gudbaan xuduudda Ventimiglia. danaystayaashu waa Faransiiska weli xilligan gumaysanaya qaaradda Afrika, iyagoo gumaysigaas u maraya inay 14 waddan oo Afrikaana u daabacaan lacagaha waddankooda oo uu bangiga dhexe yahay Faransiiska. idinka weeye kuwa ku shaqaysta carruurta yaryar ee Afrika. idinka weeye kuwa ka faa'iidaysanaya weli khayraadka Afrika. idinka weeye kuwa la soo baxa macdanta cayriin ee Afrika, sida tan hadda ka socota dalka Niger, halkaas oo ay Faransiisku kala soo baxaan 30% uraniumta uu ku shaqeeyo nuclearka Faransiisku, iyadoo 90% shacabka dalka Niger aanay haysan wax koronto ah. sidaas darteed Macron, annaga cashar nama siin kartid, waxna nooma sheegi kartid, sababtoo ah Afrikaanku qaaradooda waxay uga soo haajirayaan, uga soo cararayaan idinka dartiin, sabab Faransiisku leeyahay. Macron, Afrikaanku waxay qaaradooda uga soo tegayaan adiga iyo sababta siyaasaddaada. xalkuna ma aha in Afrikaanka loo soo barakiciyo Yurub, laakiin waa in Afrika laga xoreeyo qaar ka mid ah Yurubta sida Faransiiska. marka idinka yeeli mayno inaannu idinka cashar idinka baranno ama aan idinka wax idinka qaadanno. xaqiiqooyin noocan oo kale ah ayaa soo baxaya maalinba maalinta ka dambaysa, oo ah dhibaatada reer Yurub ku hayaan Afrika, oo ugu horeeya dalkeena Soomaaliya, oo ay doonayaan inay Soomaaliya weligeed ku sii jirto deganaan la'aan, dagaallo iyo xasilooni darro, si aanay Soomaaliya u samayn wax yar oo horumar ah. waa xaqiiqooyin jira oo Soomaaliya iyo dalal badan oo Afrikaan ah waqtigan ka jira. Giorgia Meloni, hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Brothers of Italy, ayaa ku guulaystay doorashadii Talyaaniga ka dhacday Axaddii la soo dhaaftay, taasoo ah wax aan horay u dhicin. Meloni ayaa la filayaa inay hogaamiso dowladda cusub ee Talyaaniga, waxayna noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay iyo ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee ka soo baxa xisbiga midigta fog oo jagadaas qabta tan iyo hogaamiyihii faashiistaha Benito Mussolini.